وزيرka arrimaha gudaha iyo tiimkiisana aanu ka sugaynaa marka ay sanadka doorashada xigta inaan aragaabo ka qabsoo taabilahay. wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Galle ayaa sheegay in sanadka dambe ee doorashada golaha deegaanka degmada Ceerigaabo ku qaban doonaan magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag ee Somaliland hadda maamusho. wasiirka ayaa ka hadlay goobta ay ka dhacaysay doorashada golaha degmada Baran ee gobolka Sanaag oo dhawaan loo doortay gudoomiye iyo ku-xigeenkiisa. waxa uu sheegay inay kala qaybsan doonaan magaalada Ceerigaabo iyaga ee Somaliland, wuxuuna tusaale u soo qaatay sida magaalada Gaalkacyo oo u kala baran Puntland iyo Galmudug oo ay ka kala taliyaan labada dhinac. wuxuuna sheegay in degmada Ceerigaabo oo hadda Somaliland guud ahaan maamusho ay yeelan doonto laba gudoomiye iyo laba gole deegaan oo kala matala Puntland iyo Somaliland. wasiirka arrimaha gudaha iyo tiimkiisana aanu ka sugaynaa marka ay sanadka doorashada xigta inaan aragaabo ka qabsoo taabilahay. sida askariyaha sida loogu dhaqeeya magaalada Gaalkacyo oo qaybinaya xagga goobta Gaalkacyada iyo maamulka Galmudug ay ka degan tahay oo gole deegaan iyo maamul ay ku leedahay. dhinacan waqooyiga ay degan yihiin Puntland oo ay maamul iyo golayaal deegaan ay ku leeyihiin. Ceerigaabona saas si lamida inay noqoto si nabadgelyaha lagu wada deganaado oo walba ay imaansato qaybta ay magaalada leeyihiin aan rajaynayna hadduu ilaahay arrintan wax jawaab ah weli dhanka Somaliland kama aysan soo saarin, waxaana muddooyinkii u dambeeyay gobolka Sanaag ka taagnaa xiisad u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland, waxaana ay kusoo beegmaysaa iyadoo dhawaan ciidamo ka tirsan Somaliland u soo goosteen dhinaca Puntland. waxaana iminka magaalada Baran ee gobolka Sanaag ku sugan wasiiro ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha Puntland, kan amniga, xildhibaano iyo taliyaha guud ee ciidamada Puntland. Cabdinuur Yuusuf Cabdilaahi Bakayle, wararka telefishinka caalamiga Real TV magaalada Garowe.